كيم برعو دجان كنا وانو دشوان هاي وحنا كأني شقاقة دي كدعضي يا دبتي كدعي اللي يرد يسور رصتي يا برج على شيء جنسا أي هل كنتي دبي أنت كل حتورتي كتكتي تجمده تاس أو رات كتكتي أيان أنمي odayaal badan iyo cuqaal baanu hayn odayaashii iyo waxgaradkii iyo gudidii degmada iyo amnigiiba waa isla kaashanay waxaa noo dhammaatay shaqaaqadii iyo dhibtii ay kaga tageen magaalada taasaa noo dhammaatay axsaabta marka laga hadlo saddexda xisbiba waa saddex xisbi qaran saddexda xisbi qaran ee sharciga haysta guryahay magaalada ku leeyihiin way iman karaan nin waliba kuu doonaha ku jiro waxa weeye laakiin mid shaqaaqa wada oo rabshad wata oo dadka dalka meesha degan isku dhufanaya kuu doonaba ahaadee lagama oggola waxaannu kaloo sheegayn haddaannu waxgaradkii nahay guddida guud ee habar jeclana anigu aan maanta halkan ka joogo kuwii baaqa hore ka sii daayeyna aanu nahay waxaan beeshu isku raacsanayn oo waxgaradkeeda iyo cuqaasheeda iyo salaadiinteeda iyo siyaasiyiinteedu isku raacsanayn guruubis urursaday oo dhallinyaro u badani muxuu ahaayey shir kuma qaban karaan tan iyo degmo kaloo habar jeclo leedahay toono wixii caafimaad qabee laysla ogol yahay waa la qaban karaa waxaannu ka soo horjeednaa oo mar walba ka soo horjeednaa inaanaan oggolayn wixii degmada dhib u keenaya sidaa horeba loo sheegay waa meel xasaasiya waa xuduud waa meel laba dawladood oo labadaba aannu la shaqayno oo labadaba aannu la noolnahay oo labadaba shicibkeedii nahay ay degan yihiin nabadgelyaduna cid walba wawdan waxaannu leennahay yaanu soo hugurayn qof dambe oo halkaa raba inuu shaqaaqa ka ridaa odayaal cuqaal giddigood way salaaman yihiin waxaannu halkan ka sheeganaa ka caddaynannaa hawlihii meeshan ka dhacay dhammaantood in la soo gebagebeeyey meel wanaagsan la dhigay heshiis laga gaadhay ayaannu u sheegannaa labada dawladoodba waxaannu kaloo u sheegannaa dadkii fidmowalayaasha ahaa ee waxaa ka dambeeyey waannu u digannaa hadda waxba ma daba sidno laakiin waxaannu ka rabnaa inaanay nagu soo noqon marnaba hadday soo noqdaanna kama heli doonaan wax wanaaga iyo wax samo ay halkan kala kulmi doonaan ma jiraan cid xusbi oo ay ka socdeenna annagu ma ogin xusbina may ahayn halkan waxaa iminka jooga waa khiyaartii waa odayaashii waa culimaadiinkii waa cuqaashii waa wasiirkii oo nala jooga halkan waxaannu ku soo koobaynaa wakhtigu waa wakhti ramadaana waxaa ka dhacday halkan ayaan dhowayto is-afgaranwaa niman ku soo duulay ceelka oo sharwadayaalah waxay ka tageen raad aan wanaagsanayn ayay ka tageen wixii raadee ay ka tageen iyo wixii iskhilaafa iyo wixii qalaanqala yaannu ku soo dhammaynay geedkan imanka ee nabadda aanu joogno oo lagu soo tifatiray oo la isku afgartay marka waxaannu doonaynaa inaannu muujinno oo caddayno nabadgelyada in halkan nabadgelya ka jirto dawlad jecel ka jiro kulmiya ka jiro madaxweyne axmed maxamuud ka jiro ayaannu caddaynaynaa oo halkan ku caddaynaynaa kuna muujinaynaa waxaannu caddaynaynaa cid kasta oo qalaanqal wadda iyo cid kasta oo tiraa beledhiig baan shir ku qabanayaa beeleeda inaynu wax u suurtoobi gelaya lahayn taana waa caddaynaynaa markaan cuqaasha nahay cuqaashu waxay ka shaqaysaa nabadgelyada marka hore wixii nabadda ka hor imanaya ama xumaynaya ama isku dhac keenaya waa mid nagu khalada magarasa oo beelaha iyo magarasa magaalooyinka aan joogno يعني خلخل قلية تام أنت لو شيء وياش يجوه ريه مع عقاشه خلخل قلية قحنتي أي كتجر أما هوش أي كتجر إنك أنا صاف شري يعني دور كمان كقول أنا جيت كم كوتشجنو
maanta noo soo gabagowday taas waa shirkii aan la filayn ee lagu soo dhex tuuray magaalada Beledhig ee mar qura aan ogaanay isagoo na dhaafayba taas markay dhacday hawshii uu keenay baanu iminka u joognaa ama soo gabagabaynay waxa weeye taas oo kale maanta laga bilaabo waxaan doonayaa inaana cid kastoo isku dayda inay annagana soo marto ama naga ogeyso shirkii aan loo jeghayn ma qabalayno ayaa geedkan isugu yimi taas oo laga hadlayo marka hore waxaanu soo dhawaynaynaa jiritaanka Soomaaliland marka xigta waxaan soo dhawaynaynaa dawladda uu ka madaxda yahay Axmed Maxamed Siilaanyo uu ka madax yahay xisbiga kulmiye waan soo dhawaynaynaa mar saddexaadka waxaanu bixinaynaa digniin haddii aanu nahay deegaanka ayaa ma dhaw dhibaato halkan ka dhacday tii baanu isugu nimi tii baanu ka hadlaynaa tii baanu xalilin waxaanu dadweynaha Soomaaliland iyo cidda ay qusayso iyo ciddii xumaan u jeeda waxaanu digniin halkooda ku siinaynaa marka hore magaalada la yiraahdo Ballikhaar ama Beledhig waxa shir ku qaban kara cidda deegaanka ah ee u dhalatay ee degan ee Beledhig degan cidda ayaa marka hore shir ku qaban karta iyada oo madax dhaqameedadooda uqaashooda waa garadkooda culimadoodu iyadoo u dhan yihiin ayaa shir lagu qaban karaa marka hore cid kale oo iska socota oo cid kastaba ha ahaato Soomaaliland cid kasta ha ka ahaato waxaanu u digaynaa oo uga warramaynaa inaan cid kale shir qaban karin ku qaban karin iman karin taas baanu u cadaynaynaa aniga oo la yidhaahdo magacayga Xariir Axmed Xaali oo ku hadlaya afka beesha deegaanka magaalada leeyahay Beledhig ama degmadaba halkan waxaan ku cadaynayaa haddaanu nahay odayaasha beesha Beledhig ee xeerbeegtida ah cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimada intaba halkan waxaanu ku cadaynaynaa qaabka nabadgelyada inaanu si buuxda gacanta ugu hayno ilkaha iyo gacmaha inaanu ku hayno wixii soo farageliyaana ay ku dayoobayaan oo halkooda kaga noqonayaan sidii maalintii dhaweydoo kale markay taa tahay tii maalintii dhaweyd dhacdadii ahayd raadkii ay ka tageenna si fiican ayaa loo masaxay xukuumaddu tanaasul bay ka samaysay wixii reeraha dhexdooda lagu dhex tuuray odayaashu wanaag bay ka gaadheen cuqaashu waa soo afjirtay sidaa darteed markay tahay nabadgelyo ayaa lagu dabaalay oo lagu tifatiray waxaan intaa u dhaafayaa anigoo ku hadlaya afka deegaanka halkani dawlado badan ayaa jooga oo laba ah oo magaalada labadeeda daamood kala degan labaduba qaabkaa waxu dhaceen waa diideen waa ku gurmadeen dhegtaa ka taagnayd in la dhammaystiray baanu u sheegaynaa gabagabaynay waanu geedka nabadda u fadhinay xoog anigoo ah odayaasha magaalada guddida magaaladana ka tirsan waxgaradka magaaladana ka tirsan waxaanu halkan maanta dhammaantayo aanu u heeganay oo aanu u fadhinay shaqaaqo naga soo gaadhay ciidan aan meel allaale iyo meel ay ka diiwaangashan yihiin iyo ciiday mandate ka haystaan hadday xukuumad tahay iyo hadday odayaasha habar jeclo tahay iyo hadday cuqaasha iyo salaadiinta tahay iyo hadday waxgaradka iyo siyaasiyiinta reerka tahay cidna ay mandate ka sitaa aanay jirin oo sharwadayaal ah oo fidma abuura oo nagu soo guuray oo meel shishe laga soo abaabulay oo yidhi waxaanu wadnaa shirbeeleed baanu ku qabanaynaa degmada Beledhig ee Xaaji Xasan Geelle markii aanu ka hortagnay xoogay simbiidha ah ayay naga tageen taasaanu maanta aanu nabadgelyada gacanta ku hayno ayaanu u fadhinay si wacan oo qiimalana waanu soo dhammaystiray waxaanu u sheegaynaa ummadda reer Somaliland waxaanu u sheegaynaa kuwa haddii ilaahay ka khalkhalka ka wada dalka waxaanu u sheegaynaa kuwa haybta sheeganaya aan cidna mandate ka haysan hadday xukuumad tahay iyo hadday waxgarad tahay iyo hadday salaadiin tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday odayaal tahay inaanay annaga nagu soo walaacin
inaanay maanta kadib haddii ay hintisaa hore ay soo hintiseenna si wacan baanu isaga qabannay si wacan baanu ugu guulaysanay si wacan baanu isaga celinay xoogaygii simbirada ay naga tageenna waanu dhammaystirnay annaga iyo xukuumadda oo ka wada socnaa si wacan baanu dhammaystirnay waxaanu sheegaynaa maanta kadib inaanay baldhig inaanu la soo hungurayn inaan wax shirbeeladoo lagu qabanayaa jirin inaan waxaan xukuumadda mandate ka sidan lagu qabanayaa jirin waxaan cuqaashayada iyo odayaashayada salaadiintayada iyo siyaasiyiintayada mandate ka sidan inaan lagu qabanayn waxaanu leenahay ha u hungoroonina degmaduna aad iyo aad waxay u taabacsan tahay waxa ay garab taagan tahay iyadoo ah askumayaashii xisbiga kulmiye maantana waxay taageero mug iyo miisaanba leh la dhinac taagan tahay xisbiga kulmiye isaga ayaanay ku suntan tahay ilaahay baa mahad leh halkan waxaan u nimi inaanu soo afjarno shaqaaqadii yarayd ee ka tagtay dhallinyaradii sida khaladkaa ugu soo ambabaxay halkan ee ku talagalay inay shirweyne ay ugu baaqeen beelaha barjeclo inay ku qabtaan shirka oo aanay mandate cid ay ka haystaan jirin hadday tahay hogaamiyaasha dhaqanka hadday tahay suldaanka hadday tahay cuqaasha iyo hadday tahay waxgaradka iyo hadday tahay xukuumadda midnaba iyagoo aan sharci ka haysan isili ku qabta shirka dhibkii yaraa ee ay ka tageen baanu halkan ku dhammaystirnay alxamdulilah rabbilcaalamiin si fudud buu kaasina noogu dhammaaday waxaanan ugu baaqaynaa cid kasta oo ka mid ah shacbi weynaha reer somalilan in nabadgelyadu ay tahay shayga ugu muhiimsan cid kastaabana ay awoodda iyo gacmaba isugu geynayso nabadgelyada cid laga yeelaya nabadgelye xumo ama looga dulqaadanaya haba yaraatee aanay jirin degmadanna aanay jirin wax nabadgelye xumo ah oo laga abuuri karaa iyadoo aan mandate laga haysan cidda deegaankeeda ah odayaasheeda ah cuqaasheeda ah xukuumaddeeda ah waxgaradkeeda ah ciddaas uun baa shirweyne ku qaban karta kuna baaqi karta waxaanu leenahay maanta wixii ka dambeeya waa inay ka digtoonaadaan cid kasta oo khalkhal nabadgelya darro doonaysa inay ka abuurto jamhuuriyadda somalilan maaha mid laga dulqaadanayo waxaan ugu mahadnaqayaa hawshii halkan ka dhacday ee laga soo raray meel kale ee raadka reebtay ilaahay noo hirgeliyey inaannu dhammayno qodaxdii ay ka tageen baan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka odayaasha guddoomiyaha degmada ee giddigoodba wada shaqeeyey ayaannu u mahadnaqaynaa waxaan intaa uga gudbayaa haddaan cuqaasha reerka nahay waxaannu leenahay iyo madax dhaqameedkii shir aanaan ogayn oo odayaashu ogayn oo guurtudu ogayn oo waxgaradku ogayn oo caaqilku ogayn oo suldaanku ogayn oo boqorku ogayn oo dawladdu ogayn oo lagu qaban karo bildhig ma jiro kii isku dayey inuu shir ka qabtana waxa weeyaan si wanaagsan ayaannu uga hor tagnay raadku reebayna waannu dhammaynay nabadgelyo is-afgarad gacmahoo lays haysto ayaannu ku soo dhammaynay haddii aannu nahay cuqaasha iyo odayaasha iyo wasiirka yuusuf xasan umal oo reerka ah ayaannu ku soo dhammaynay waxa aan mar labaad ku celinayaa degmada bildhig inaan shir lagu qaban karin aan la ogayn odayaashu ogayn intaa waxaan uga gudbayaa ciddii soo hunguraynaysana waxaan uga digayaa inaanay cid dambe soo hunguraysaa jirin waxaan intaa uga baxayaa oo aannu soo dhowaynaynaa oo reerku ku suntan yahay madaxweynaha axmed axmed siyaale waa soo dhowaynaynaa xusbiga kulmiye waa soo dhowaynaynaa muuse biixi oo maanta u taagan mustaqbalka madaxweynaha u taagan waa soo dhowaynaynaa waa garab taagannahay anigoo ku hadlaya anigoo magacayga la yidhahdo cali abubakar jaamac xuseen kuna hadlaya afka deegaanka balkhayr waxaan ka hadlayaa hadalkii waxaa soo dhameeyey cuqaasha iyo karintii hore soo dhameeyo hadalku iska kordhaayo lama naaxiyo in arrinka intii halkan dhacay markii hore saalkan balkhayr laba dawladood u dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya labaduba anaguna xawey labaduba dawladdeedii way labaduba dawladdeedii labaduba sharfan yihiin labaduba hadii la ka dhigo shacabkoodii baanu nahay marka waxa weeyaan labadaba anaguna heeliyo hobo ka sugaynaa anaguna shacabku baanu nahay oo waxaanu nahay shacabka cadowga kaga xeeran hadii la ka dhigayo aanu qarin karin hadii la ka la garab taagan yaanu nahay wanaag iyo abaalgud la garab taagan baanu nahay marka waxa weeyaan arrin halkan ka dhacay maalin weeyto arrinka wuxuu ahaa arrin hadii la ka dhigayo la soo raray meel laga soo raray anagu war waxayno
baladhigun baa lagu qabtay arrinkaasoo dabeeto wuxuu noqday wuu ku hungoobay waxay u socdeenba way ku hungoobeen laakiinse waxay ka tageen arrin yani qodaxa bay ka tageen oo isku dhufashaahoo rag baa isku dhacay runta marka la sheego ceelkana aad iyo aad buu uga gariirsiiyey burco iyo halkan iyo hargeysa bentaro dhan meeshii la joogaba waa laga maqlay arrinkaa waa laga maqlay arrinkii ceelkana iminka lagu qabtay meel walbana waa laga yimi codkar iyo cuqaal iyo salaadiin iyo madax iyo dhallinyaro ciduma kala maqna waa laisugu yimi adigu gebagabihiisu maanta soo dhammaaday wuxuu ku soo dhammaaday heshiis iyo nabadgelyo iyo wanaag waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxaan kaloo aad u salaamayaa mujaahid muuse biixi cabdi oo ah musharaxa xusbiga kulmiye baryahanba 2 shir ayaa miidiyaha laga wadooday degmadan lagu qabanayo mid faa'iido noo keenay midna khasaare shir waxa ku qabtay xusbiga kulmiye faa'iido noo keenay dhalinyaradii oo dhan baa isdhex gashay bulsho fara badan baa isugu timi oo ka faa'iideystay midna dhalinyaro ahaan iyo magaalo ahaan sumaad xumo noo keenay shirkaana waxa waday dad qaswadayaal oo meelo fara badan ayaa laga soo rorogay laga soo bedelay waxaanu leenahay inuu sheeganaa shirkaasi mid fashilmay buu ahaa ciddii mar labaad isku dayda waxaanu leenahay tallaabo cad ayaa la idinka qaadi doonaa